sida aad muuqaalada gadaasheedaba ku aragtaan waxaa maanta kulan isugu yimid maamulka degmada Garbaharey laamaha ammaanka sida ciidanka militariga booliska iyo ciidamada NISA ee magaaladan ka howlgalo sidoo kale waxaa kulankan qayb ka ahaa ciidamada ADMIS ee nabad ilaalinta u jooga magaalada Garbaharey kulankan ayaa gabi ahaanba waxaa looga hadlayay sidii amniga magaalada loo xakameyn lahaa iyo qaabkii qawaariidta dhagartooda looga hortagi lahaa sidoo kale kulankan ayaa aad waxa loogu falanqeynayay dadka al-shabaab xiriirka la yeesho ama la aado haday noqdaan shacab iyo haday noqdaan ciidanba sidii laga yeeli lahaa iyo sidii loola dhaqmi lahaa iyo qaabkii loo wajihi lahaa wada hadal dheer kadib shirkaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha degmada Garbaharey Iimaan Cadow Kaarshe ayaa waxa loo bixiyay guddigaas oo go'aan ka soo gaaro qaabkii dadka loo wajihi lahaa loola dhaqmi lahaa halse waa la isla qaatay oo maamulka degmada Garbaharey iyo laamaha ammaanka haday noqdaan kuwa Soomaaliya iyo kuwa ADMISba ee nabad ilaalinta u joogo in amniga magaalada la sugo waa la isla qaata cid walba oo dhagar qaba ah ama u shaqeeyo ama xiriir la lehna go'aan cad oo ballaaran bay ka soo saareen laakiin dadka la xaajoonayo sida oday dhaqameedyada iyo dadka kale u tagayo ama dadka la macaamilo ama kuwii maxkamad u aado ama kuwii hoos hankooda u dhigay ee shabaab loo arkay inay u hoggaansan yihiin go'aana cad guddi ka soo saaro ayaa maanta la bixiyay wixii ka soo kordha haduu ilaa yiraahdo ayadoo faahfaahsan shirarkan iyo shirar ka dambeeyo ayaa kula kulmi doonta waa anigoo ah wariye warsame xaaji faarax kuna magac dheer birta calan